wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo xidhiidhka caalamiga ah Dr. Sacad Cali Shire oo uu wehelinayo safiirka Soomaaliland u fadhiya dalkani Kenya Cabdillaahi Cabdi Cali ayaa maanta si rasmi ah xadhiga uga jaray xaruntii ugu ballaadhnayd abid ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ay ku yeelan doonto magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Xaruntaasi oo gabi ahaanba ka kooban 4 xafiis oo mid kasta gaarkiisa u qalabaysan yahay iyo qolka shirarka ayaa noqon doona safaaradda Soomaaliland ay ku yeelan doonto magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Xaruntan oo laga furay faras magaalada Nairobi oo aan aad uga fogeyn guriga madaxtooyada ee dalka Kenya ayaa noqon doona mid wax weyn ka tara xidhiidhka wanaagsan ee u dhaxeeya dalka Kenya iyo Jamhuuriyadda Soomaaliland kaas oo isku xiri doona jaaliyadda Soomaaliland ee ku nool dalka Kenya iyo dhammaanba wacyiga iyo siyaasadda guud ee ka jirta Jamhuuriyadda Soomaaliland. Furitaanka xaruntani ayaa ku soo beegmaya kadib markii habeenkii xalay toolaha ahaa ay wafdigii ballaadhnaa ee uu hogaaminayay gudoomiyaha xusbul xaakimka Kulmiye ahna musharaxa jagada madaxweynaha xusbiga Kulmiye Mujaahid Muuse Biixi Cabdi oo wehelinayo wasiirka arrimaha dibadda iyo xidhiidhka caalamiga ah Dr. Sacad Cali Shire iyo sidoo kale safiirka Soomaaliland u fadhiya dalkani Kenya ay kulan ballaaran la qaateen wasiirka arrimaha dibadda ee dalkani Kenya Aamina Maxamed. kulankaasi oo lagaga hadlay sidii loo kobcin lahaa xidhiidhka diblomaasiga ah ee u dhaxeeya labada dal iyo sidoo kale sidii loo kordhin lahaa ganacsiga ay isdhaafsanayaan Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dalkani Kenya. kaas oo wasiirka arrimaha dibadda Dr. Sacad Cali Shire uu sheegay in xafiiska lamida ay wadanka Kenya ka furan doonaan magaalada Hargeysa ee caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliland. furitaanka xaruntani oo ugu horreyn uu ka hadlay safiirka Soomaaliland u fadhiya dalkani Kenya waxa uu hadalkiisa ku bilaabay sida tan: waka diwaad aragtay wasiir xafiiskeeni aad baad u mahadsantahay horta codsigeediga aad aqbashay inaad waqtigan gaaban aan ku codsaday inaad xafiiska noo furtid aadna aan kugu mahadcelinayaa gacantaada siisay sidii aan xafiiskan u hirgelinayn furisteeda la'aanta aan xafiiskan wallahi runta haddaan sheego inaan la furi lahayn sida u dadaashay aan isku taqluujisay sidii xafiiskan maanta loo furi lahaa. talabaad muhiimadda xafiiskan leeyahay waad la socotaa magaalada Nairobi waxay tahay xudunta East Africa iyo Geeska Africa wixii adduunka oo dhan hay'ado iyo safaaradaha adduunka oo dhan ba magaaladan degan marka danaheena oo dhan xafiisyada Nairobi ay ku xidhiidhin UN-ka ama safaaradaha ama hay'adaha oo dhan taas muhiimadaas ay leedahay. hore xafiis waanu lahayn ma hati weerisa xafiis waanu lahayn waan ka soo guurnay xafiiskii hore la xidhay marka meel magaalada u dhow oo xafiis weyn oo magaalada u dhow oo accessible ah ayaan helnay. ilaahay mahadi weey. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. وحارنتي فرحad noo iyo sharaf iyo nasiib in maanta si rasmi ah dib loogu furo xafiiskii wakiilka Soomaaliland ee Kenya oo saldhigiisu yahay Nairobi. waxaan doonayaa in si gaar ah uga mahadceliyo Cabdillaahi Cabdi wakiilka dadaalka uu muujiyay iyo tacabka uu geliyay sidii xafiiskan quruxda badan loo dhisi lahaa loo suurtagelin lahaa. xafiiskan wuxuu astaan u yahay cilaaqaadka taariikhiga ah ee ka dhaxeeya Soomaaliland iyo Kenya. xafiiskan wuxuu ka shaqeyn doonaa xoojinta iyo ballaadhinta cilaaqaadka Soomaaliland iyo Kenya. wuxuu u adeegi doonaa dadka doonaya inay Soomaaliland tagaan uu fududeyn doona viisooyinka. waxaan rajaynaynaa in xafiiskan dhigiisa dhawaan laga furo Hargeysa waayo Soomaaliland waxa jooga jaaliyad ballaaran oo Kenyan ah. waxaanu xalay la kulannay wasiirka arrimaha dibadda ee wadanka Kenya. waxyaabahan ka wada hadalay waxa kamid ahaa sidii dib loogu furi lahaa xafiiskii loo furi lahaa xafiiskaas loona sii adkeyn lahaa loona ballaarin lahaa cilaaqaadka labada dal ka dhaxeeya. xafiiskan Soomaaliland ay ku yeelan doonto dalka Kenya gaar ahaan magaalada Nairobi ayaa noqon doona mid faa'iido ballaaran u leh dhammaanba jaaliyadda Soomaaliland ee ku dhaqan dalka Kenya iskuna xidhi doona dalkii hooyo iyo dalkan Kenya. Cabdillaahi Cabdi Cali TV qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland magaalada Nairobi.